hadda ka hor waxaa jiray nin asagoo madax adag la soo aaday nabigeena dhinaciisa ninkaasi waxa uu maaganaa nabiga in uu dilo kadibna uu soo aaday seef ayuu soo qaatay kaligood markay noqdeen wuxuuna nabigeena ku yiri yaa ii ka badbaadinay sallallahu alayhi wasallam kadibna nabiga si geesinimo wuxuu ku yiri ilaahay yaa ii ka badbaadinay isla markiiba ninkii seefti ayaa dhulka uga dhacday dhulka iyo samada magaca Allah markay maqleen dhamaantood way galgashteen nabigeena sallallahu alayhi wasallam seefti ayuu soo qaatay ninkii ayuu soo dul istaagay waxa uuna weydiiyay isagina nabigeena su'aalay ninkii wuxuu yiri yaa ii ka badbaadinayo haddana wuu naxariis badnaa nabiga nabadgeli iyo naxariis korkiisa ahaatee ninkii waa uu iska cafiyay nabiyul raxma ayuu ahaa waxaan idin sheegayaa si walba aad nabigeena sallallahu alayhi wasallam in aan ku dayano Allah aana ahaano dad mar walba daacad ilaahay ku kalsoon qofka aadanaha waxaad ogaataan si walba shirqool u raadiyay in uusan guuleysanaynin kuwa shirqoolka sameynayana si walba wax u dilaan waa ay dhimanayaan hadday noolaadaan kuwa dhinta waa mana guuleysan doonaan hadday ismoodaan inay guuleystaan waa kuwa guul darasta ilaahay naga ma dhigo kuwaas oo